عليكم ورحمة الله وبركاته. وأنا لي خارجة وناشين حمد علي محمد. halka ay la socotaan waa Xamdi Xaali Channel. soo dhawaada maanta waa markii labaad oo imaaday company Forever oo imaaday inaan noo adeego ma sha Allah alaabta adeeganina muuqaal idinka macnaha muuqaalkan la dhex jirtaa oo ay anoo sharaxaad ka bixinayo ay la arki doontiin wuxuu ku aanbaxay lacagtaas ku aanbaxay waxaan joognaa waa company-ga weyn ee Forever يا افتح هذا البرقدالك هذا الكاميرا قداشيدك هذا المانت محاول ما انت والله برنامج كان aniga waayay saay ku dhahay dada ku aatooy waxa hayna qof sayaan bari 7 kiilo ku riday qof kale ma ahan waa walaalkay AK ama Axmed Kaafi sida uu taqaaniin insha Allah waa isla arki doonaa sagara ani asoo isla fadhino oo sharaxaad ka bixinayo waxyaalihii uu ka faa'iiday siinaynkii waxa kale oo haya wiil kale oo la dhaho Axmed Saalax asagana wuxuu lahaa calool aad u weyn laakiin calooshii hadda waa kaasashaatigii hurgufooya wajigiisa mid ku aadinayno Axmed maxaa ka faa'iiday alxamdulillah khayr baa keenay wajigaaga malgeli karaa insha Allah after 3 months wajigaaga malgeli karaa bas calooshii la after 3 months insha Allah calooshaas ay ahaan jirtay after 3 months صار كسر صار دونا 3 months 6 بقى لنتوس دونا اوكي ان شاء الله أحمد كافي تستك وإرقتي وإبوستي وإريحدي وحنا فائدة ستي حنوكي هايو يداود يسعط فانتي وبلابا يعني هذا الجول ماذا أنا هذا بلابا وعبيتك ولا مرة شاتي أسوقها شار كان هذا مركور شات عرية اللي بيجي الكورة شات وين أوبعين حتى شات وين اللي بيحنا ميتين كان عندنا فندي أجي وأصحابي مركنا بس على فوق واحد بدنا يعني صح الحمد لله سن ألات أدينا وحكوا أركض دين جورجنا نقول جوجنا ميسك أفضلنا شرحاتنا أكبحنايو waxaan idin leeyahay waxa laga faa'iideysto Forever Living product oo leh producti aad u badan miisaan kordhin miisaan dhimis iyo kulli inta bacdi waxaan rabaa maanta waxaan noo wadaa productigi Forever iyo waxtarkiisii faa'iidooyinkiisii iyo inta hadda ugu fiican oo aniga ii taalo productigan face wash kan kulli muuqaal ay kaga duubay waa aragteen maalin dhaweyd ku dhamaaday waa soo celiyay hadda symbol u soo qaatay intaan waxaan ugu talagalay in aan symbol ahaan aan u soo qaato laakiin way taala hadda alaabtu way taala kaliya hadda waxa iga dhamaaday oo ii oolin kareemkii haaraha bixinayay iyo madmadowga indhaha hoostooda galo kaasna insha Allah waxaan u safrayaa isniinta haduu Ilaahay idmo insha Allah biidnillah walaalaha qaaliga ah Olivera scrub kan waxa way wuu dhamaaday waan soo celiyay faa'iidadiisana aad ay u fiican tahay oo aad iyo aad u kareemkan u fiican yahay scrub kan wallahi rag iyo dumarna way isticmaali karaan dadkii soo isticmaalana natiijooyin badan oo faa'iido badan ay ka soo heleen ay igu soo celiyeen marka waa scrub-ka Forever scrub waaye Forever scrub-keeda waaye kana waa face wash-kii saa aragtaan kiniinyash way noo dambeynayaan waxaan rabaa marka hore inaan noo sharaxo kareemada iyo face wash-ka kareemkan aad u fiican yahay kareemkan qofka darayga ah iyo qofka oilka ah way wada isticmaali karaan wajigaaga hadii uu yahay waji daal oo qof shaqeeye aad tahay maalinkii oo dhan aad suuqa joogto oo shaqeynaysid habeenkii markaa guriga imaadidna aad maxay aheeday haddana hooyo tahay oo gurigii shaqo iyo awlaadii kala toosintooda ay kaaga soo horeyso oo nasiinadaada ay yar tahay kareemkan aad ku anfacaya haddii aadan shaqeynin oo maxay aheeday wax shaqo adoon haynin haddana aad wajigaaga uu yahay waji u baahan tahay waji qurux badan oo nadiifa oo maxay aheeday dhalaalayo oo gadgaduudka ka bixin inuu ka aartid oo gaduudatid oo mar walba qof wajigiisa daalan yahay aad tahayna aad ku anfacaya kareemkan waliba ana isticmaalay kan waa idinka hubaa 100% faa'iidadiisa kan waa idinka hubaa wax maxay aheeday shaki iiga jira ma ahan aad u fiican yahay inkastoo alaabta Forever aysan kala dhicinbo ma kala dhacdo mid ka dhaca malaha kanna waa gel Olivera gel waaye dacar ka samaysan yahay waa dacar waaye Olivera gel waaye ma fahanteen asagana
dacartan wajiga aad ugu fiican tahay wajigaaga wuxuu noqonayaa smooth qurux badan oo dhaldhalaalayo ma sha Allah Colgate-kan yaan loo ildarnaanin Colgate-kan waxa waaye iridka hadaa ka jirin tahay oo ilkahaaga dhiigayaan hadaa ilka gadgaduudan leedahay haday balwad ku dishay hadii maxay ahayd dadka shaaxa rinjiga cabo oo tahay oo ilkahaaga ay gadgaduudan yihiin hadii aad tahay dadka shaaxa huruuda ka sameeysan cabo oo ilkahaaga ay noqdeen yellow ama jaallo ay noqdeen hadii aad tahay dadka afkooda soo shiiro intaba Colgate-kaas lagama soo gaaro aad u fiican yahay 100% sidoo kale cream-kan asagana waxa waaye sunscreen cream-kan qorraxda marka face wash isticmaashid oo scrub-ka isticmaashid gel-ka isticmaashid cream-kan habeenkii marka seexanaysid sidoo kale iska marsatid oo ku seexan kartaa wax problem ma lahan hadii aad ku seexatid wax problem oo leeyahay ma laha marka suuqa aadaysid oo shaqo tagaysid ama aadan suuqa ka leedahay oo aad rabtid inaad danahaaga soo qabsatana kan amarsanaysa qorraxda aad ka marsanaysa cream-kan aad u fiican yahay qorraxda in laga marsado waa cream aad iyo aad ugu helay aniga dhinaca qorraxda hadii la dhaho sidoo kale face wash-ka wax qabadkeeda aad u fiican tahay laakiin cilada jirta waxay tahay waa qaali marka haday face wash-ka ay qaali kugu tahay oo aadan gadan karin booskeeda waxa ku bedelan kartaa saabuunta ku bedelan kartaa ayada raqiisa waana isku mid isku tayo waaye face wash-ka iyo saabuunta waa isku wax qabad aad u fiican tahay saabuuntan ana ayada naftirkeeda isticmaale faa'iidadeedana waa idin hayaa wax aan iska sheegay ma aha sidoo kale conditioner-kan waxa iga dhamaaday shaambadiisi waa keena asagana alaabta oo isniinta loo safraayo uu kamid yahay hadaad leedahay tintaada ay tahay tin jabayso ama salka lafta hoose ka soo siibanaysa xabad usoo siibanaysa aa leedahay tin qalalan oo tintaada mar walba saliid daamarisid ay qalalan tahay shaambadan iyo conditioner-keeda yaan loo ildarnaanin aad u fiican tahay walaalahayga qaaliga ah ani waxaan jeclahay wixii ani aan idinka soo hubiyo ogaada faa'iidadooda markaas ka bacdi inaan idin la shir imaado forever hadda aniga C9 wixii waa idin sharaxay hore laakiin alaabahan productigan kareemadan iyo waxaan hadda ka hor idin soo sharxin sababta idin kugu soo sharxi waayo wax kale ma aha sababta idin kugu soo sharxi waayo waxay tahay waxaan rabay inaan soo tijaabiyo faa'iidada ay leeyihiin aan soo ogaado ani hadda C9 oo miisaan dhimista wili ma bilaabin sababta u bilaabi waayo waxay tahay waa xanuunsanaa daawa ii socotay maadaama ay daawo ii socotay dhakhtarkayga hadii aad la tashtay wuxuu dhahay marka daawadaada aad dhameysatid oo aad maxay ahayd daawadaas ay ku dhamaatay ka bacdi aad isticmaali kartaa wixii kale oo aad isticmaalaysid laakiin daawadaada iyo ha isku dhaxdarin productigan that's why aan asaga dib ugu dhigay oo maxay ahayd aan hadda aan caafimaadkayga marka hore ii muhiimsan inaan daawadeeda dhameystirto madaxaana la iga haya xoogaha aad ayaantaan ii soo duceeya walaalahayga qaaliga ducadiina mar walba waan u baahanahay waxa idin soo haray horta bahashan aad iyo aad looga soo falceliyay customer ku igu xiran oo waxa jiro Europe iyo America joogo oo iga adeegteen hadaa Europe joogtid waa ku adeegi karaa alaabtaada address-kaaga soo dirsanaysa gurigaaga lagu keenaa lacagta soo diraysa lacagta marka soo dirto waa ku adeegaya address-kaaga ii soo diraysa iyo magacaaga gurigaaga lagu adeega adigoona meelna aadin albaabkaaga lagu soo dhigaya alaabtaada hadaa Europe joogto iyo hadaa America joogto intaba waa kaaga adeegi karaa markaasna si qaasana waa ila soo xiriiri kartaa taleefankayga ciwaanku ku qoran yahay WhatsApp-ka wax allaale iyo wixii aad u baahan tahay iyo wixii ku dhibaayo cilada markaas ku haysato waa ii sheegi kartaa aniga oo adiga ku qancinayo wixii adiga dantaada ah oo faa'iidadaada ahna ka caawinaya haduu Ilaahay idin insha Allah marka bahashan waa libis waaye afka la marsadaa waa fasliin ma aha rooseeto guduud ama color oo dhan afkaaga u sameynayso fasliin waaye marka fasliintaas waa furaya xabadan waa taasa waa fasliin xataa baabacadeeda afkayga hadda rooseeta marsan baabacadeeda marinaya si aad u aragtiin rag iyo dumar way isticmaali karaan hadii aad wadan qabow joogtid oo afka naab ka kacdo
ama ilmahaaga markaas wixii iskuulka u diray sidoo kaleeto bishimahooda aad markay kuu soo noqdaan naab iyo waxaas ku arkaysid kulli way ka caawinaysaa rag iyo dumar isticmaal kara. aan hadda wiilal ay iga gateen walaalahay ah oo maxay ahayd Mareykan joogaan wallahi way iiga soo mahad celiyeen faa'iidadii ay ka heleen way ii soo sheegeen ma sha Allah tabarakallah. waan rajaynayaa qof kasta u baahan inaan ka caawiyo waa jeclahay mar walbana garabkiina ahay mar walbana waxaan jeclaa waxyaalaha idinka aad jeceshihiin aad daneynaysiin inaan idinka caawiyo walaalahayga qaaliga aan jeclahay rag iyo dumarba waxaad tihiin walaalahayga qaaliga aan jeclahay. anna waxaan u taaganahay inaan idinka quruxdiina iyo waxyaalaha idinka idin anfacaya aan chemical ka ahayn oo idin qurxinaya aan idin kala shaqeeyo aan idin la soo share gareeyo. hadda aniga iga gadanaysiin iyo hadda meel kale ka gadanaysiin hadda ana iga gadanaysid oo ila soo xiriirtid waa ku qancinayaa waan ku soo dhaweynayaa waan ku raali gelinayaa. hadda Yurub joogtid hadda America joogtid hadda Afrikadan kale joogtid hadda Soomaaliya joogtid intaba waa iga helaysiin. waxa kale meesha noo yaalo kiniinigan waa kiniiniga ilmaha waa fitamiin ma tahay hooyo ilmaheeda ay ku dhibeen abateedka ma tahay hooyo ilmaheeda ay yihiin ilmo dhuudhuuban oo caata ah ma tahay hooyo markay ilmaha cuntada siinayso dhibsato sababtoo ah ilmihii aan abateed lahayn ma tahay hooyo jecel inay ilmaheeda ilmaha kale ka qurux badnaadaan. haddii aad u baahan tahay waad ila soo xiriiri kartaa. kiniinigan abateedka waaye ilmaha wuu ku kobcinayaa abateedu u furaaya hurdu siinaya nasiinu siinaya ma sha Allah tabarakallah. sida u siinaysid sida u isticmaalaysidna waan ku sharaxaya. sidoo kale ma tahay qof lafaha xanuunayaan oo calciumka ku yar yahay lafihiisa waa ka saakiniiniga waa calcium waaye 9 xabo ku jirto isagana aad u fiican yahay. kan ilmahana 120 xabo ku jirto aad u fiican yahay. sidoo kale cabitaankan aad iyo aad u fiican yahay waa qaali ha ahaado laakiin qiimaha lacagta waxba ma aha. lacag waad shaqaysan kartaa laakiin energy iyo caafimaad fiican iyo qurux ma shaqaysan kartid. sidoo kale dacarta ayadana aad u fiican tahay waliba dacarta waxay ka caawinaysaa marka adiga aad rabtid inaad qurux badnaato cream aad jirkaaga mariso oo kaliya kuma qurux badnaanaysid laakiin marka jirkaaga gudaha aad nadiifiso oo dhiigaaga aad nadiifiso oo aad ka shaqeyso inaad calooshaada nadiifiso dhiigaaga nadiifiso midabkaaga wuu qurux badnaanayaa. cabitaankan haddii aad tahay qof daal badan haddii aad tahay qof maxay ahaydey u baahan energy oo shaqadiisu ay too much tahay aad ku anfacayaa. oo ku soo dhaweynayaa waa kula saayirayaa si fiican oo wanaagsan aan wax kaaga iibinayaa insha Allah. telephone numberkaygana waxaan ku soo qori doonaa ciwaanka muuqaalka hadduu Ilaahay idmo insha Allah. walaalahayga qaaliga waxaan jeclahay wax walba oo aniga aan u arko inay faa'iido leeyihiin ina idin la soo share gareeyo. sidoo kale adinkana aad ka faa'iideysataan. waa ku farxaa commentidiina quruxda badan ee dhiiri geliya aniga waa ku farxaa like-tiina share-tiina iyo subscribe-kiina waliba ii soo kordhayo ma sha Allah tabarakallah. waa idinkaga mahad celinayaa taas mar walba waxaad tihiin walaalahayga aan jeclahay garbahayga familkayga labaad aad idin jeclahay. muuqaalka ma rabo inuu sii dheeraado. haddii aad jeceshihiin ina idin kala qaado shay aan u soo sharaxo shay faa'iidada uu leeyahay idin la soo wadaago iyo waliba aniga oo isticmaalaya haddii aad rabtiin in idin la share gareeyo commentiga iigu soo qora waa idin la soo share gareynaya waxa idinka aad jeceshihiin waa jeclaha anigana. isla socod wanaagsan muuqaalka xigo waxaa idinkaga sii tagayaa. Assalaamu calaykum wa rahmatullaahi wa barakaatuh.